waxaa maanta hoolka weyn ee jaamacada bariga Afrika lagu qabtay munaasabada qalin jabinta ardayda dhamaystay jaamacada sanadka 2018 munaasabadaasi oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay macallimiinta iyo dhammaanba qaybo kamid ah bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeynba hadalka bilaabay kana sheekeeyay marxaladihii kala duwan ee soo martay jaamacadaasi madaxweynaha jaamacada bariga Afrika Professor Aadan Xidhnow cali waxana uu sheegay waxa farxad weyn oo ah inaan maanta qabano xafladda qalin jabinta 18aad dafcada 18aad ee jaamacadda bariga Afrika xarunteeda boosaaso xarun kasta waqtigeeda ay leedahay laga qabtaa xafladaha laakiin xafladda xarunta maanta ay ku soo beegantay waxa maanta inoo qalin jabinaysa inoo qalin jabiyay 560 arday oo qaatay darajada bachelorka ama baccalaureaska iyo 8 arday oo qaatay darajada masterka oo shariica daraasaadka ulya ah post graduate ka tirsan ardaydaas qalin jabisay dhamaantood waxa leeyahay hambalyo ilaahay haydu ku afo cilmiga barateen hana noqdo mid aad muxuu ahaa u gudbisaan bulshada waxna ugu qabataan waalidkeed ku soo tabcay na aad wax ka tartaan ummadoo dhan aad insha Allah guul ugu soo jiidaan runtii muddo dheer bay ardaydaas soo dadaaleen waan garanaynaa 12 sano dugsi hoose ilaa dugsi dhexe sare ah oo ka sii horeeyay quraanka barashadiisii daana bachelorka la dhigay qaarna ay uga soo gudbeen masterka dhameeyeen waqti dheer waa garanaysaa 20 sano ku dhawaad ay noqonaysaa muddada dheer iyana dadaal bay sameeyeen waalidkooda dadaal buu sameynayay ilaahay dadaalkii waalidka uu sameeyay iyo kay uu sameeyeen ma khasaarin ee guul buu ku dhameeyay waa inaga maanta xusayna la qaybsanayna farxadda qalin jabintooda runtii jaamacadda bariga Afrika oo la aasaasay 1999 maantana maraysa 2018 waxaa farxad weyn u ah inay soo saartay aqoonyahan fara badan oo qaatay darajada bachelorka iyada ka qaatay dhankooda waxa hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladaasi waxaana ay sheegeen waxaan leeyahay ardayda maanta qalin jabis waxa kula dardaarmaya maanta waxa soo gaadhay stage ba soo gaadheen kuwa bachelor degree-ga diyaariyay waxbarashadu way socotaa halka kuma eka waxa la idin ka rabaa inaad master degree-ga diyaarsaan inaad PhD aad wadaan inaad hor u socotaan yaa idinkaga baahan yahay ardayda masterka diyaariyay waxa la idin ka rabaa inaad PhD diyaarsaan waxa la idin ka rabaa inaad waxa weeye aad noqotaan researchers waxa la idin ka rabaa problemska iyo masaakisha dalkan ka jirta inaad ka qayb qaadataan xal solutionskiis marka waa idin salaamay marka labaad waxaan u tahniyadeynayaa ardada soo dadaashay oo soo halgantay oo qalin jabisay aqoontu waa sida qofka basharka ah maraaxisha uu maro oo kale soo martaa qofku marka u horeeyo candhuuf weeye marka labaad xinjir weeye marka saddexaad mudqo weeye marka afraad shakli baa loo sameeyaa waxaad ka soo bilowdeen idinkoo caruur yar yar ah oo waxna aan qorin waxna akhriyin oo tabuula raasa waxa lagu magacaabo ah baad soo bilowdeen maraaxil kala duwan baad soo marteen marxaladda hadda waxaad maraysaan inaad ka qalin jabisaan jaamacad marka waxaan leeyahay hambalyo guulaysta Axmed Bigeys SomNews TV boosaaso